maanta bal waxaan si practical ah idiin tusi doonaa qaabka ugu fudud ee isku diiwaangelin karayso jaamacadahaasi anigoo ka bilaabi doona toddobaadkii hore videogii aan la soo sheergareeyay aan soo dhigay jaamacadihii ku jiray ayaan qaar ka mid ah idinkoo arkaya aan hadda isdiiwaangelin doonaa insha allahu tacaala inta badan videoga markaan soo dhigo waxaan mar walba idiin sheegaa in linkiga koorasyada aan soo dhigay aan idiin soo dhigayo qaybta descriptionka qaybta haddaba descriptionka dad badan baa fahmi waayey qaybta descriptionku waa qaybtan weeyaan qaybtaas waa qaybta loogu talagalay videoga xagga ka hooseysa wixii macluumaada in lagula wadaago qofka daawadaha marka qaybta descriptionka idiin sheegaa inta badan halkaas weeyaan mar walbana wixii aan soo dhigo iyo wixii macluumaada halkaas ayaad geli kartaa marka videoga markaad hoos soo degto qaybta descriptionka si fudud ayaad u arkaysaa dhammaan waa kuwan koorasyadii aan soo dhigay toddobaadkii hore hadda aan isku dayo inaan qaar ka mid ah aan isdiiwaangeliyo bil walbana koorasyada aan soo dhigo sidan hadda anigu aan isku diiwaangelinayo unbaad isku diiwaangelin doontaa adigu kooraskii ugu horreeyay toddobaadkii hore aynu soo sheergareynay waa halkan inoogu diiwaangashan kaasuu ahaa waxaa magaciisa la odhanayay takhasus al-icdaad alwadiifi markaasaan isku dayayaa hadda inaan isdiiwaangeliyo waa kooras ku baxay luqadda carabiga dhammaan koorasyada luqadda carabigana sida kale aan isku diiwaangeliya hadda unbaad isku diiwaangelin karaysaa okay video descriptionkii baan joogaa kadib linkiga halka aan soo dhigay ayaan ku dul dhufanayaa waxa uu igeyn doonaa markaa kooraskii waayahay hadda se halkan la socotaan manasadan ama websitekan aan jooga magaciisu waxa weeyaan waxa loo yaqaanaa waa idraak mar walba koorasyada carabiga waxaan kasoo qaadaa anigu laba meelood ama waa idraak ama waa rawaaq labaduna waa isku si unbaa loo diiwaangeliyaa waayahay haddii haddaba markii kuugu horreysay ay tahayd idraak soo booqato oo aanad horey account ugu lahayn laba choice baan ku kala siinayaa halkaa waxa inoogu qoran anshi xisaab buu ku leeyahay macnaha waa hadda isdiiwaangeli halkaana waxa inoogu qoran waa dukhuul qaybta labaad macnaha haddii hore aad u diiwaangashanaydna waad galaysaa waa sidii englishkii marna sign up marna log in uu ku lahaa weeyaan marka kuwa englishka baynu ku arki doonaa waayahay maadaama hadda aan cusubahay anshi xisaab baan ku dhufanayaa kaas ayaan ka dooranayaa okay kadib waxaan sugayaa marka inta uu isoo baxayo halkan markaa muxuu ahay halkan iisoo baxday meelahana layga rabaa marka meelaha bannaan oo dhan ayaa qodobada bannaan oo dhan ayaa layga baahan yahay in aan buuxiyo markaasaan soo socota ayaan u buuxinayaa okay waayahay sidan oo kale ayaad u buuxinaysaa halka ugu horeysa waxaad gelinaysaa waa gmailkaaga anugu dabcan waan diiwaan gashanahay laakiin waxaan sameeyey gmail tijaaba oon ugu talagalay inaad ku fahantaan halka labaad waxaad gelinaysaa ismul mustakhdim weeyaan waa magaca lagugu garanayo maaha shardi inuu noqdo magacaagii saxdi laakiin waxaa la rabaa keliya magac dadka kale aad kaga duwantoo lagaga garto matalan haddii iminkaan cabdishakuur baa la dhahdaa halka haddaan cabdishakuur ku qorto waxa jira intaasoo cabdishakuur oo meesha ku jira marka wuu iga diidi doonaa baan iskaga qortay markaa halkaa waxaad ku buuxinaysaa waxa weyn waa magacaaga oo saddexan waa magaca shahaadada aad ku qaadan doonto halkaana waxaad ku buuxinaysaa waa passwordkaagii baad gelinaysaa halkaana mar labaad ayaad passwordka ku soo celinaysaa kadib waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay sajil ilaan waxa uu kuu soo dhigayaa markaa fariintan ahlan buu yidhi ilaa idraak ku soo dhowow kadib halkan wuxuu ku leeyahay بعض الوقت لديك بعض الوقت لتزودنا بمعلومات إضافية وقت ما هي ساسي معلومات كقاركود النجوم بحبيحيسو عبي لاحقا باتكيرو فنسا هل كان waxa uu ku soo dhigaya sadarkiiso passwordkaaga iyo emailkaaga ma ku save gareeyaa buu ku leeyahay haddii computerka isticmaalaysa adigu aad leedahay iska save gareyso si mar walba aad ugu xasuusato okay halkaa marka aad joogto idraak waad iska diiwaangelisay marka iminka kaliya waxaad u baahan tahay inaad kooraska iska diiwaangeliso waxaad ku noqonaysaa videogii linkigii kooraska ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay indam al'aan halkaas ayaad taabanaysaa okay indam al'aan way fariintan uu soo diray tahaaniina buu ku yidhi hambalyo
laqad tama tasjiiluka binajaax waa lagu guulaystay inaad kooraska iska diiwaangeliso fi takhasus al-icdaad alwadiifi halka haddaba marka aan joogo waxa aan ku laabanayaa waa emailkaygii waa gmailkii baan ku laabanayaa kadib waxaan arkayaa inuu fariin ii soo diray okay fariintaas waa gmailka ayuu rabaa inuu confirm gareeyo halkaas ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay facil xisaabak confirm garee weeyaan gmailkayga okay waa yahay fariintan markaa kusoo diraya wuxuu ku leeyahay tama tafciilu xisaabi binajaax waa lagu guulaystay inaad gmailkiina aad confirm gareyso waxaan kusoo laabanayaa marka halkii ay ku qornayd tahaaniina hambalyo kadib waxaan ku dhufanayaa halkaa eeda hoose tasafax atakhasus takhasuskaaga tasafux okay sijili dukhuul baan sii leeyahay sidaas ayaan hadda aan isku diiwaangeliyey kooraskii waa kan kooraskii hadda wuu ii soo dhigayaa waxa halkaasaad ku jiidaysaa markaa waa kaa kooraskii halkaa iminka waxa uu socdaa waa masaaqii koowaad macnaha waa chapterkii koowaad buu socdaa waa kaa magaciisiina 12 usbuuc buu soconayaa kooraskii macnaha hadda kadib sidaas ayaan ku diiwaan gashanahay wixii intaa ka dambeeya waxaa looga baahan yahay kaliyaata waxaa laiga baahan yahay inaan cashir ka dhigto kadib halkan aan ku dul dhufanayaa marka wakaas ilaahay mahadii kooraskii saas ayaan ku diiwaan gashanahay hadda sidaasuu kugu soo dhigayaa halkaas waa munaaqashadii halkaa waa taqadumkii halkaa waa khudadii waxaan oo dhan adigaa sii wadan doona wuxuu ku yidhi halkan yar markii ku guraysa hadday tahay fiicanta inaad ka akhrisato kayfa astakhdim khudatu lmasaaq laakiin haddaad hore usii garanaysay oo kale waxaad toos aad u tegeysaa halka ay ku qoran tahay alwaxdatu alula waa chapterkii koowaad halkan haddaynu u fiirsano wuxuu ku leeyahay taariikhul yowm maanta waa 14 abril 2020 nihaayat lmasaaq kooraskan wuxuu ku dhammaanayaa khilaala shahrayn waa 2 bilood لتحصل على شهادة شهادات قالتنا لابد من إتمام جميع المتطلبات قبل هذا التخرج انت قبل هذا التاريخ انت أنا تاريخ ذا لقارين وحاكولوا إن ضميسة ضمان كورسكاغي oo dhan halkan waxaan ku soo noqonayaa alwaxdatu alula chapterka koobaad ayaan ku dul dhufanayaa kadib chapterkii koobaad intaas ayuu ka kooban yahay waxaan sii dhexgali karaa مثلا halkaa waxa igu qoran ومقدمة عامة معايير المظهر وحن أردن وكورسكي ويهي وحن كرفنا مثلا المقدمة دي مقدمة عامة عن آداب العمل أيام كرفنا سيتوس أي فيديو كمركا يقول بالعمية كورسكي نهال كاسان كوتا سيداس مركا اللي شكو ديوان قليا كورس عربي حدان صور ديقنو مركا دنبي سيداس أي شكو ديوان قلنيسا هل مر أمبان اللو بهاي gmailkaaga inaad geliso marka dambe loo baahdo course inaad isdiiwaan gelisana indam al'aan umbaad ku qori doontaa matalan tusaale ahaan haddii aynu ku noqono halkii matalan course-ka hadda ay ku qoran tahay alif ba as-sihha wal marad ayaan rabaa inaan isdiiwaan geliyo waa idraak umbaa bixinaysa halkaasaan ku dhufanayaa kadib mar dambe uma baahni inaan insha idhaahdo indam al'aan umaan toos ugu dhufanayaa course-ka isdiiwaan geli kadib tahaaniina hambalyoon bay soo dhigayaa marka dambe aynu course soo dhigno sidaas ayaad kugu hambalyeynaya marka ugu horeysaba halkan umaan tegayaa tasafax ilmasaaq baan leeyahay kaana sidaas ayaan course-kaana kusii dhiganayaa marka waxaan filayaa course-ka carabiga sida la isku diiwaan gelinaya inaynu fahnay waayahay iminka waxaynu bilaabi doonaa qaabka la isku diiwaan geliyo course-yada ku baxa luqadda Englishka okay course fara badan baan soo dhignay okay dhowr course baan idinla wadaagay bishii dhaweyd mid ka mid ah baan tusaale ahaan iska soo qaadanaya oo isdiiwaan gelinaya ka doonta isdiiwaan gelin kartaa dhammaan isdiiwaan gelintu isku wada midun matalan kaas isdiiwaan gelinaya introduction to virtual reality course-ka loo yaqaano okay marka linkiga ayaan ku dul dhufanayaa course-ka magaciisi waa kan introduction to virtual reality jaamacad aad shahaadada ka qaadanayso waa tan waa University of London
jaamacadda London weeyaan waa jaamacad qaaliya kooraskuna waa kooras aad u muhiima 15 Abriil buu bilaabmayaa waa maanta bisha 15keeda intaasoo arday baa dhiganaysa 15,490 arday baa ilaa hadda la diiwaangeliyey oo dhiganaysa haddaba waxaan jeclaystay inaan hal arrin idinku baraarujiyo koorasyada Englishka arrintaasina waxa weeyaan dhalinyaro badanna ay soo weydiinayeen mar walba oo ay galaan kooraska Englishka waxay ku leeyihiin waxbarashadu waa free laakiin shahaadada ayay lacag ku dul qorayaan taasi waa runtood shahaadada mar walba lacag ayay ku dul qoraan okay way shahaadada mar walba lacag bay ku dul qoraan laakiin waa qofkii iska bixin kara qofkan laakiin haysanin halkan maxaa inoogu qoran financial aid available macnaha waxa weeyaan financial aid baa lagu siinayaa shahaadada lacagteedii ayaa lagaa bixinayaa marka waxbarashadii mar kastaba waxbarashadu waa bilaash shahaadadana hadda inagu lacagama haysanee mar walba waxaad codsanaysaa financial aid iyo in laga caawiyo shahaadada lacagteeda ayaa codsanaysaa okay marka hadda waxaan ku dul dhufanayaa halka ay ku qoran tahay financial aid sidan uu isoo dhigaya soo socota sidii kooraska carabigii ahaa halkan wuxuu igu qorayaa log in halkana wuxuu igu qorayaa sign up okay anigoo kale horaan ugu sii jiray marka log inka ayaan ku dhufanayaa laakiin adigu haddaad imika ku cusub tahay sign upka ayaad ka dooranaysaa way log in ayaan doortay laba choice buu siiyey continue with Facebook iyo continue with Apple waayo Facebook fudud marka continue with Facebook ayaad iskaga sii dhufanaysaa kadibna Facebookgayga ayuu igu diiwaangeliyey horaan u socday kadib waxaan dooranayaa halkii ay ku qornayd financial aid okay wuxuu isiinayaa markaa financial aidka markaan doorto wuxuu ku leeyahay continue to the application for the course introduction to virtual reality ama enroll and start learning today wuxuu ku yidhi marka applicationku wuxuu qaadanayaa at least 15 days to get reviewed marka aynu hadda codsanno in bilaash shahaadada laynagu siiyo 15 cisho ayay kaa maqnaanaysaa codsigu marka waa caadi dhib male ha kaa maqnaato 15 cisho 15 cisho kadib unbaad kooraska bilaabi doontaa marka halkaa continue ay ku qoran tahay ayaan gelayaa sidan markaa igu soo saarayaa halkan waxa aad ku qoraysaa wuxuu ku yidhi labadaaba waad saxaysaa kadibna wuxuu ku yidhi please halkan wuxuu ku leeyahay please type the following sentencekan soo socday halkaa waa sentenceka yar weeyaan halkaa maran ku qor buu ku leeyahay halkaa maran sida uu yahay ayaad u qoraysaa anigaa qoray kadib halka continue ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa waayahay wuxuu kuu soo saarayaa markaa pagekan educational background wuxuu ku weydiinayaa marka ugu horeysa educational backgroundkaaga macnaha waxbarashada heerkeebaad ka gaadhay qofka haddaad high school college haddaad dhigatay degree haddaad qaadatay ama degree aad ku jirto master haddaad gaadhay wakaas matalan anoo kale master baan iska dooranayaa xaggan wuxuu ku weydiiyey annual sanadkii imsa lacag ku soo gasha number wuxuun baad iska gelinaysaa matalan waxaa iska odhanaya $100 bay soo galaa waa iska tusaaloon adu waxaad doontaa iska gashan kartaa laakiin mar walba waa inaad yareyso employment status maxaad ka shaqaysaa student baad dooranaysaa arday baan ahay waayahay wuxuu ku yidhi bishii imsaa iska bixin kartaa lacagta matalan wuxuun baan iska gelinayaa taana number baan iska gelinayaa waxaan leeyahay matalan bishii $3 baan bixin karaa halka ugu muhiimsan waxa weeyaan waa labadan su'aalood inaad ka jawaabtid why are you applying for financial aid sababta aad u codsanayso in shahaadada lagaa bixiyaa maxay tahay wuxuu ku yidhi waxaad gelisaa ugu yaraan 150 kelmadood oo af ingiriisiya oo codsiyaad gelinaysaa su-aasha labaadna waxaa lagu yidhi haddii aad qaadato macnaha kooraskan sidee buu kuugu caawin karaa kooraskani to achieve your career goals haddii kooraskan aad qaadato sidee buu kaaga caawinayaa inaad gooliskaaga iyo ahdaaftaadii aad gaadho iyaduna waa 150 kelmadood inaad qorto haddii haddaba af ingiliishkaagu fiican yahay iska tacbiiri qor 150 kelmadood halkanna 150 kelmadood oo ah sababtaad u codsanayso iyo 150 kelmadood oo ah sida uu kooraskan ku caawinayo haddii kalena ha isku sii wareerinin aniga ayaa kuu soo qoray descriptionkan kuu soo dhigi doonaa
marka ta anu aan kuusoo qoray unbaad gelinaysaa. waayahay waa kan iminka su-aasha koowaad oo kale tanaad kaga jawaabaysaa. Soomaaliyan joogaa lacag ma haysto waxaas weeyaan. kadib halkan markaad soo koobi geliso paste unbaad leedahay. su-aashii koowaad waan buuxiyey. su-aasha labaadna waa tan waan kaaga soo shaqeeyey iyadana. wuxunbaad iskaga haddii aad jeclaatana meelaha qaarkood waa iska bedeli kartaa. okay labadii su-aaloodba waa kuwa. jawaabahan aan su-aalaha kaga shaqeeyey waxaa idiin soo dhigayaa video descriptionka. halkii video descriptionka idiin soo dhigayaa. kadib halkaa yes baad iska odhanaysaa. kadibna waxaad taabanaysaa submit application. okay wuxuu ku yiri we have received your financial aid application. okay wuxuu ku yiri markaa wuu soo gaaray codsigaagii. waxaan kusoo jawaabi doonaa April 30, 2020. bisha April 30keega 2020. isla imikana markaa fariin buu kugu soo diri doonaa markaa Facebookaaga. wuxuu ku leeyahay Coursera iska diiwaan gelisay. saa ula soco Coursera iska diiwaan gelisay. hadhow tole Facebookaaga markaa fariin lagu soo dhigi doonaa oo lagu odhanayaa markii April gaadho course-kii waa kuu diyaar soo gal. marka ilaa April 30keega maanta waa April 15 baan joognaa. ilaa April 30keega waad iska sugaysaa 15 ka casho. kadib waxbarashadiina bilaash baad ku heshay. shahaadadiina bilaash baad ku heshay. course-kana waxaad bixinaysay sidii aynu soo aragnay jaamacadda London. marka waa chance aad iyo aad u weyn oo qofku ka faa'iideysan karo. kaliya ta maaha on course-kan laakiin course walba oo soo dhigno waxa bixinaya waa jaamacadaha waaweyn ee dunida ku yaala. bilaash lagaga faa'iideysto. halkaa waxa inoogu dhan sida la isku diiwaan geliyo koorsada carabiga iyo sida la isku diiwaan geliyo courseska Englishka. maalin dambe wixii course aynu soo dhigno waa taqaanaa maanta laga bilaabo sida la isku diiwaan gelinayo. kaliya ta waxaan raacinayaa fursad aynu ku soo darnay bishii dhaweyd oo gaar u ahayd bishan imika April oo socota. bishan April ee imika socota waa fursadii aynu sheegaynay ahaa free seminar English. seminaarkii Englishkii ee bilaashkii. isaga jaamacadii ma bixinaynin laakiin wuxuu ahaa seminar bilaasha oo bisha loogu talagalay in laga faa'iideysto. maalin walbana cashirku uu ku soo dhacayo. kaasaynu isagana raacinaynaa sida la isku diiwaan gelinayo waa fudud yahay. linkiga markaynu ku dhufano halkan uu ku keenayaa free seminar. laba jeer bay furnaa waan iska xidhay. okay wuxuu ku leeyahay how to speak better English in 1 month. sidee baad Englishka ugu hadli kartaa si wanaagsan welibana in 1 month hal bil oo keliyata. macalinka halkan idinka muuqdaa dhigaya. macluumaad fara badan baa halkan ku bixinaya. wuxuu ku leeyahay matalan sida aad fluent ugu noqon lahayd Englishka. sidii macnaha fasaxad ugu hadli lahayd. 3 khalad ee dadka ugu waaweyn ay dadku galaan buu ku sheegaya. wuxuu ku leeyahay halkan wuxuu kugu baraarujinayaa macalinkan dhigaya in 10 years of teaching experience inuu leeyahay 10 sano wax ka badan. inuu wax muxuu ahaayey in uu marka keliyata uu ku qaato course-kan oo kale $1,000 lacag ka badan. laakiin imika bishan uu free ka dhigay. waa kuwan ardaydii wax ka baratay ee Englishka ka aflaxday macalinkan. waad sii daawan kartaa iyaga laftooda. haddaba waxaad ku dhufanaysaa halkan si aad isku diiwaan geliso seminaarkaasi uu inooga faa'iideynayo professorkaas. halkaas ayaad ku dhufanaysaa. kadib waad yar sugaysaa in yar check in availability. okay halkaa waxaad dooranaysaa date-ka aad joogto. anu maanta waxaan joogaa waa April 15. time zone-ka aad dooranaysaa. time zone-ka anu maadaama waddanka joogo saacadaydu waxay ku base garaysan tahay waa Kuwait iyo Riyadh iyo ay ka socotaa. waxaad gelinaysaa first name-kaaga magaca lagugu garanayo. halkaa waxaad gelinaysaa your email address. email address-kaagii baad gelinaysaa. kii imika aynu samaynay baan ku tijaabinayaa. anu course-kan waan dhigtaa hadda bishan waan diiwaan gashanahay laakiin idinka ay tusaysaa la isku diiwaan gelinayo. gmail-kii baan geliyey. kadib halkaa waxaan ku dhufanayaa ku qoran tahay register. okay wuxuu ku leeyahay congratulations hambalyo. waa sidii kii carabigii oo kale uu ku hambalyeynaya inaad waxaad noqotay buu ku leeyahay qof ama arday diiwaan gashan laga bilaabo imika. okay waayahay
video baa halkan kuusoo dhigaya videogan daawo buu ku leeyahay way ku fiican tahay videogan inaad daawato marka uu hadlayaa waa 4 daqiiqo keliyata waxa uu videogan kaga hadlayaa macalinku kooraska iyo saad uga faa'iidaysan lahayd kadib si kooraskii aan toos ugu tago halkaas ayaan ku dhufanayaa click this linkiga hoosta yaala ayaan ku dhufanayaa si kooraska aan usii galo okay linkigii waa kan ku dhuftay okay wuxuu ku leeyahay free seminar how to speak better English in just 1 month hal bil oo keliyata sideebaad Englishka ugu hadli kartaa kooraska markaa maanta uu ii bilaabmay maanta bishii waa 15 April bay socotaa 15 May buu iga dhamaan doonaa aniga markaa waayahay wuxuu ii bilaabmayaa cashirku in 6 minutes 6 daqiiqo kadib adigana markaa waqti buu ku qaban doonaa markaas diiwaan geliso 5 daqiiqo 4 daqiiqo 7 daqiiqo marba waqtigii uu doono ayuu ku qabanayaa 6 daqiiqo kadib ayuu markaa kooraska Englishkiina ii bilaabmi doonaa marka waxa la rabaa markaad isdiiwaan gelinayso waa inay noqoto waqti aad free tahay waayo imika hadda 6 daqiiqo kadib uu kooraskii bilaabmaya 2 saacadood oo xiriirana wuu ii soconaya maalin walbana waa inaad kusoo talagasho bishaa soo socota inaad 2 saacadood oo xiriira aad macalinka siiso ood Englishka luqadaada siiso si aad ugu hadasho si faseexa bil kadib keliyata maxaa isugu keen haray waxa isugu keen haray hadda keliyata adiga ayay mas'uuliyaddii ku soo saarantay intayda anigu waan gutay waa inaad dadaasho waad arkaysaa waxa kooraska baxaya aan waxaan idin leeyahay wixii anigu aan baranayay in maalin walba isdiiwaan gelinayay ayaan idinkana idin leeyahay kaalay walaalayaal la barta maaha wax keliyata wax anigu aan isku koobayo aan qarsanayo oo aan leeyahay dadku yaani kula ogaanin waa cilmiga aan leeyahay kaalay aynu wada baranay maanta walibana free baa leeyahay inta ugu badan guryaha la fadhiyaa ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii dugsiyadu waa fasax oo jaaniska laga faa'iidaysto adoo maanta gurigaaga dhex jooga waa adiga arkaya London University baad shahaado ka qaadan kartaa oo arday ka noqon kartaa maanta ka bixi kartaa marka maanta no excuse wax cudurdaari ma jiro haddii mobile aad haysato iyo internet haddii aad heli karayso please waqtiga laga faa'iideeyo aad iyo aadna waa idin salaamaya cashirkan hala gaarsiiyo walaalihiina kale ardayda ha loo share gareeyo qof walba channelkeena YouTube-ka waxaad ku soo xidhaa waa channel aynu ugu talagalay inuu jaamacad socdo noqdo jaamacad bilaash noqdo waxaad ku soo xidhaa walaalahaaga kale wax baranaya maanta laga bilaabo maanta 2 qof 3 qof oo saaxiibadaya u dir channelka ha soo galaan ha subscribe gareeyaan ummadoo dhan hala gaarsiiyo waxa kalaba la faafiyaa khayrka iyo wanaaga iyo faa'iidadana hala faafiyo aad baan dhamaanteedii salaamaya waxaan rajaynayaa su'aashii ahayd sideen isku diiwaan geliyaa maanta kadib in ay halkaa kusoo gabagaboon doonto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh